السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada coursekeena Adobe Illustrator. maanta cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay sida loo sameeyo flyerkan hortiina ka muuqda ayaa rabnaa maanta inaan sameyno. marka insha Allah taala la socdo cashirkeena maanta waxaan sameynaynaa flyerkan oo ku saabsan fast food ama maqaayad loogu talagalay. marka la socdo qaabka loo sameeyo flyerka waxaan soo dhigaysaa Adobe Illustrator, waxaan tagaynaa file new, kadib waxaan u bixinaa flyer. artboardka isticmaalina waa hal waxaan isticmaalina warqada loo yaqaan A4 size, kadibna stack ayaa ka dhigna, kadib okay dhehna. marka okay dhado design-ka ayaan bilaabeynaa. waxaan isticmaalina wax loo yaqaan pen tool-ka ayaa halkan tagaysaa. pen tool-ka aad isticmaalaya ayaa hasaan u jiidaysaa ilaa geeska gee, klik halka ku dheh ilaa hoos gee, marka klik dheh ilaa halkan gee, kadib halkan ku dhafo. inta marka sameyso kadib waan qurxinaynaa. horta color aan siino, color black si stroke wanan colorna black. saan u qurxino waxaan tagaynaa direct selection tool, kadib halkan noo door. waxaan qurxinaynaa flyerka meela anchor point-iga marka direct selection tool ku dhufato ayaad ka toosinaysaa ulahan oo kale. saas darada saas oo ku noqona. marka ulahaas ka qurxi. okay kale shape waa nooca. kadib waxaan noo doortaa, waxaan noo xirtaa log ayaa noo dhahdaa selection object, waxaad tagtaa kadib log, kadib selection log. marka dhahno waxaan rabnaa qaybta kore inaan soo geliyo waxa loo yaqaano ellipse tool, qaybta sawirka ay ku fariisanaysay. ellipse tool saan noogu sawir, kadib waxaan noo geysaa qaybta sare. okay sidaa markaad sameyso qaybta banaanka inaan jarnaa rabnaa. shape baan ku daboolina rectangle tool ama colorka bedel saa u fahamto horta meeshuu ka bilaabanayo. kadib waxaan siinaa red, kadib shape-ka noo soo qaad. marka waxaa ku sawirtaa inta uu ku fadhiyo artboard-kaada. markaa sidaa sameyso kadib all selection noo saar, kadib qaybta banaanka naga jar. waxaan noo isticmaalayo shape builder, halta qabo kasaa u jiid. marka waa iska jartay, kadib shape-kan kore iska qaad. okay intaan waan sameynay. marka waxaa noo dhiman design-ka waa dhameynay. waxaa noo dhiman inaan qoraaladii aan soo gelino. qaybtan kore waxaan isticmaalaynaa stroke ku samee ama stroke u sameyn. waxaan sameyn karnaa kan wax yar soo jiid, alt left kaligeed waxay soo jiid, kadib send to back gadaal u dir. waxaan rabaa sidii wareegga kale inaan u sameeyo. okay midkan kore marka waxaan ka dhignaa color kale, color noocan oo kale bunni. kadib wuxuu leeyahay marka wareegga uu leeyahay oo sidii stroke oo kale. kadib marka waxaa dhahnaa waxaa soo gelinaynaa image-ki hamburger-ki, kadib draw inside, kadib waxaa dhahdaa file, kadib waxaa dhahdaa place. markaa dhahdo sawirka meeshuu kugu jira soo qaadanaysaa. sawirka isticmaalaya waa kan, kadib place ku dheh, kadib halkan ku daa, kadib noo soo yaree. image-ku wuu weyn yahay, sida u yaree. okay halkaas aan kusii dayn. marka waxaa noo dhiman marka designada kale inaan sameyno. halkan aan ku qorno waxa loo yaqaano perfect food oo kale, best food ama perfect food oo kale. halkaas waxaan ku qoraynaa perfect food. kadib colorkeeda waxaan ka siinaynaa red. marka halkaan noo geey. waxaan isticmaalaynaa farta loo yaqaano hoos aan u soconno, fartaan isticmaalana oo loo yaqaano oclash. markaa isticmaasho kadib waxa yar qalooc yar aan gelino sababtoo sida camal aan ka dhigno. halkaan noo geey. qaybta hooseysa waxaan ku qoraynaa fresh and delicious.
ayagana sidoo kale rotate to reach kadib halkan inoo gey size-kooda yaree size-ka yaree waxaan isticmaalayna farta loo yaqaano playbill fartaan isticmaalayna. Okay, waxaan usoo haray qaybahan hoose inaan sameyno ls tool noo sawir halkaan noo gey colorka bedel waxaan sameeyay ellipse tool kadib saddexdooda copy ayaan ka sameeyay midka dambana waa yareeyay kadib waxaan rabaa marka saddexdooda inaan sawiro soo geliyo kan korna aan ku qoro 30% off waa camal kanoo kale colorka aan ka bedelo qaybtan aan ka dhigo. Okay, kadib waxaan rabaa marka sidii hadda waxaan isticmaalaa draw inside mid ka mid dooro kadib draw inside kadib file kadib waxaa dhahdaa place saddexdooda sidaas aan ku sameynaa. Okay, kadib waxaan rabaa line ka dheer inaan ku sawiro shift adoo haya sababtoo line straight inuu ku noqdo kadib stroke laba ka dhig colorkiisana white. Okay, kadib inoo soo qaad marka oo saar waa inaa geey. Okay, line-ka waa sawiray qaybtan dhexe waxaan qora qoraal ah welcome to Delicious kadib colorka bedel white c kadib noo soo qaad halkaan noo soo weyne. Okay, delicious oo kale colorkaan ka bedelno anagoo siinayna colorka noocan oo kale ah. Okay, maxaa loo dhiman qaybta hoose internetka ayaa kasoo degsi kartaa ani waa internetka kasoo degso okay, saas u hagaajiso markaad soo degsato kadib waxaa noo haray qaybta kore loogadaan saaraynaa halkaan loogada maqaayadda loogada halkaan oo kale ii taalan ayaga soo qaadanaya loogadii halkaas oo kale idhig. Okay, wax ku haray male marka waxaa samaysay flyer waa aad u qurux badan oo haddii aad maqaayad leedahay fast food oo kale aad samayso oo kale sidaan kale u diyaarinaysa. Flyerkan waa sidaas oo kale waxay kana rabaa wareegga stroke inaan ka dhigo kadib waxaa dhashaa layman wareeg inaan ka dhigaa rabaa dashed line-ka jeegda saarana kadib color waxaan ka dhigaa red oo kale isticmaala. Okay, marka flyer aad u qurxoon ayaan halkan ku sameynay flyer qurxoon oo loogu talagalay maqaayadaha oo kale ayaan halkan ku sameynay. marka insha Allah taala restaurant-gaada oo kale sidaan kale u samayso عشركينا ما تتاسى يوكساب سيئة هالكاسا ينكسو قبقوينينا هذا مستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.